waatan qaabka nolosheeda dhaqaale aan u dhisayo adigana aan kula wadaagayo ood ku dhisi karayso noloshaada dhaqaale. Kow, risk reward game. Ciyaarta la yiraahdo khasaare yar iyo faa'iido badan. Askariga dalkii jooga wuxuu qaataa $100 ilaa $150. Aad ayuu adag tahay inuu intaas ku noolaado. Wuxuu ku qasban yahay inuu dadka gacanta hoos dhigto, inuu dadka baryo, iyo inuu balwada qaato si uu maantoleel cadceeda u taagnaado. Waayo awoodda iyo tamarta meesha uu gelinayo iyo faa'iidada ka soo gelaysa wax isla maahan. waana dareemi karaa dhalinyarta badankoodu sababta aysan shaqo u raadsan maadaama kama arkayaan faa'iido far badan. Tanina dadka badankoodu waxay ku qasabtaa inay gurigooda iska joogaan ilaa intay ka helayaan wax faa'iido far badan siinaya. Maadaama uu hadafkaagu yahay inaad faa'iido far badan samayso, macnaheedu maahan in shimbir walba oo doosha aad la doosho. waa in noloshaadu ay nidaamsan tahay oo garanayso waxa aad rabto oo wixii uu ku cad yahay. Qofka caafimaad qabi wuxuu raadsadaa waxyaalo far badan, baahiyihiisa far badan, balse qofka xanuunsanaya kaliya caafimaadkiisa ayuu raadsadaa. adigu waxa taa qof xanuunsanaya waxa diiradda saari doontaa kaliya caafimaadkaaga, kaliya shayga faa'iidada badan ku siinaya. halka shay ee diiradda aynu saari doono waxaan ku qiimeyn doonaa saddexdan shay. kow, lacagta ay samayn karayso. laba, dhibaatada ay xalinayso. saddex, in cid walba ay baran karayso in kale. tusaale waxaan soo qaadan doonaa xirfad dadka badankooda aad u xiiseeyaan oo ah video editing. video editing xirfadahan waa xirfadaysan, balse qiimeynta aynu guda galno. lacag ma samayn karaysaa? lacagta waxaan ku qiimin doonaa 1 ilaa 5. 1 ah aad u hooseysa, 5 oo ah lacag far badan ayaa laga samayn doonaa. waxaan ku qiimin doonaa 2. sababtan 2 u siin waxa weeye waqti xaadirkan xirfadda kaliya la promote gareeya aad dadka loogu boonboonay inay bartaan waqti xaadirkan waa video editing ama graphic design. suuqu jam ayuu yahay. xirfadda aad baratay in suuq gain aad u hesho oo laga iibsado oo mataqaana suuqa ay la falgasho waxay ku xiran tahay suuqa baahida ay ka taagan tahay. marka waa demand iyo supply. waqti xaadirkan aad ay ugu far badan tahay dadka xirfaddan bartay. aniga intaas qof ay la soo xiriiray gulaada ma kula shaqeyn kare sababta darteed waxaan siin doonaa 2. haddaba dhibaato intee leeg ay xalin karsaa? dhibaato aad u weyn ay xalinaysaa. shirkad walba ama meherad walba waxay u baahan tahay qof productiga ay iibinayso, suuqa soo gelisa, internetka soo gelisa, qurxiso oo sharaxdana. hadda video editing dhibaato aad u weyn ay xalinaya. waxaan siin doonaa tan 4. balse cidii laga iibgeyn lahaa ee shirkadda haysatay ama meherad haysatay nasiib xumo kuma baraarugsan. markaas sababta darteed 4 ayaan siin doonaa, laakiin nasiib xumo laguma baraarugsana dadka badankooda. saddexaad oo ah cid walba baran karaysa. nasiib xumo cid walba ayaa baran karaysa. waxaa loo baahan yahay hal sanad ama ilaa 6 bilood baan isleeyahay qofku wadnaha u duldhigo xirfaddan inuu barto. markaas sababta darteed waxaan siin doonaa 2. aad ayuu adag tahay waqti xaadirkana lacag samayso maadaama cid walba ayaa baran karaysa. shay walba oo cid walba baran karaysana adigu qiimiyaad ka samayn lahayd ama lacagteed ka samayn lahayd. halkan xirfad ayaan diiradda saari doonaa waqtiyada soo socda. adigana aan kugula talinayo inaad xirfaddan wadnaha duldhigtood barato. xirfaddan waxa weeyaan wax iibgeynta iyo dhibaato xalinta. fahmidda bini'aadanku waxa ay rabaan baahidoodana aad guddo, maaha baahidoodana aad guddo. shayga inaad adigu aad baahida ku gudaysan qasama inaad adigu haysato cid kale ayaa hayn karaysa. laakiin fahmidda bini'aadanku waxa u baahan yihiin ka iibgeynta shaygaasna waa xirfaddan islee aad ay u cajiib tahay. waxay ku siin karaysaa faa'iidada aad rabto ee aad u baahan tahay. tan waxay kaa caawin doontaa noloshaada dhaqaale inay sare u qaado. fahan qaabka bini'aadanka wax looga iibgeeyo. anigu fikradaydan kaa iibgeynaya maanta. waxaan adiga kuu sahlay inaad halkan soo fadhiisato daawato. fikradayda ayaan indirect kaa dhaadhiciyay sababta darteed bad ilaa imikadan aad u soo fadhida. bini'aadanka ama noloshu waxa ku dhisanta waxa la wax kala iibgeyn. qof walba aragtidiisa iyo fikradiisu kaa iibgeynaya. noloshu waxay ku dhisan tahay wax iibgeyn. xirfadda wax iibgeynta ka noqoto shaqo xirfad aad u cajiiba. xirfadda ugu fiican ee lacagta u fiican ku siin karayso weyn inaad wax kala iibgeyn karayso. wax kala iibgeynta dadka badankooda waxay fahmaan in qofku wax ka xadayo ama qofku inuu qof kale wax ka qaadanayo oo qof wax waayayo oysan ahayn win-win ay tahay win-lose. qof guulaysan qofna guuldareysanay. waana aragtida qaldan ee laga haysto wax iibgeynta. laakiin shirkad walba waxay u baahan tahay qof u iibgeeya fikradooda. meherad walba waxay u baahan tahay shayga iibinayso in loo iibgeeyo. waqti xaadirkan dalkeenu aad ay uga bisil yahay oo cid tayaysan wax iibgeynaysa aad ay u yartay. xirfadda iibgeynta shirkad walba u baahan, business walba u baahan. aqoontaada iyo qaabka dhibaatada u fahmaysay, qaabka dhibaatada u xalin karayso unbay ku xidhan tahay. waana xirfaddan ku leeyahay wadnaha duldhig qaabka wax loo iibgeeyo. sell. dadka badankoodu lacag ay rabaan inay sameeyaan iyagoon ogeyn lacagta ku filan. ugu dambaystan lacagta ay daba cayrsadaan ilaa intay ka dhimanayaan iyagoon ogeyn sababta u dhinteen. dadka badankoodu lacag ay rabaan laakiin ma oga inta ku filan. maalmo ka mid waxa iimday wiil wuxuuna igu yidhi waxaan rabaa inaan lacag sameeyo ee san ku samayn kara lacag talana isi.
kabacdina waxaan weydiiyey su-aashu ma ahan inaad weydiisid lacagsan ku samayn karaya waxa weeyaan baan ku iri lacag intee leeg ayaa kugu filan kabacdina u fikir okay kabacdi waan wada fadhisanay waxaan la eegay noloshiisa inta ku filan familigiisa isagoo ka badbadinin nolol ku filan kabacdi waxaan noo soo baxday lacagta uu baahan yahay bay inay tahay $300 oo keliya kabacdi lacagta uma badnaba yes mararka qaar noloshiina inaga isku adkayna inagoon ogeyn waxa aynu rabno iyo waxa nagu filan lacag aynu raadina maanta inagoon garanayna cadadka ay leedahay waxaan leeyahay waxaad ogeyn inta ay leegtahay cadadka intuu yahay ugu dambaysta wuxuu baad raadinaysaa anadoo weyn waxa aad raadinayso marka ma ogtahay waxaad raadinayso muxuu yahay cadadku waa imisa ogaanshahaas wuxuu ka caawinaya wadada qaadayso halkan talo ayaa aad i anfacday noloshayda adigana aan ku siinayo talada halkan talo ayaa noloshayda anfacday adigana aan kula wadaagayo kaba soo qaad shirkadaadu qiimo ahaan waxa ku fadhidaa 100,000 haddaba shirkadaadu maadaama 100,000 ku fadhido ka waran haddii shaqada aad qabataan uu qiimaheedu uu yahay $0.05 suurtagal ma yahay waa maya shaqada iyo natiijadu waa inay islahaadaan yes waa suurtagal haddii productigaas uu jaban yahay dad fara badanna aad gaadhaysaan waa okay laakiin ka waran haddii productigaas qiimihiisu yahay 0.5 laakiin dadka ka iibsanaya aad u yaryihiin marka faa'iidadii aad rabtay inay ku soo gasho iyo shaygaad iibinaysaa ismale marka waa in aad shaygaad iibinayso sare u qaada ama customer-kaaga in uu noqdo customer qiimo fara badan shayga ku bixin karay waa labada midun ama qiimaha shaygaas unba sare u qaadi ama customer lacag badan bixin karaya unba raadsan waa labada midun okay haddaba aan ku soo noqdo su'aashii ka waran haddii shirkadaadu iyadoo 100,000 shaqadaad qaban 0.5 tahay wax suurtagal ma marka halkan talo ayaad caajib gelisay adigana aan kula wadaagayo shaqada aad qabanayso iyo hadafka aad rabto wuxuu yahay waa in islahaadaan haddii hadafkaagu uu noqdo odogaatid lacagta kugu filan intay tahay shaqada aad qabanaysaa waa inay ahaataa mid ku munaasibsan hadafkaaga wixii ka hooseeya shimbir walbaaba oo doosha lama duulino inaga diiradda waxaan saar doona shaqadan qaban iyo natiijada iyo faa'iidada rabna ma ina siinaysaa marka ogow marka koowaad lacag intee leeg ayaa kugu filan saad ogaatid wadadaad qaadayso iyo wadada aadan qaadin shayga saddexaad ee noloshada dhaqaale sare u qaadi doona waxa weyn noloshaada ururi haddaba see loo ururiyaa nolosha dadka badankoodu gacantooda ay jeel isku geliyaan iyagoon ogeyn inay jeel ku jiraan gaari qaaliya ay deyn ku soo qaateen oo ay bixiyaan bil walba lacag guri kira ay degan yihiin oo qaaliya taasoo lacagta kirada laga sugo dadka ku hareeraysan noloshooda qofkaas ayay ku tiirsan yihiin qofkaas la'aantiin ma noolaan kareen dadkaasi qofkani ma oga inuu jeel ku jiro laakiin gacantiisa ayuu jeel isu geliyay kamana bixi karayo noloshaadu waa qaabkaadu noolaatoon lifestyle-ka aad dhisato unbaa noloshaada jeel ku gelin karaysa ama kaa saari karaysa dadka badankoodu way shaqeeyaan sababta u shaqeynan haddii xaqiiqdii la weydiiyo ereyga koowaad ee maskaxda ku soo dhaca haween haddaan shaqada ka tago xaafadayda yaa siinaya biil gurigan deganaya kirada bixinaya ka waran noloshaada ururiso ka waran noloshaada dad hoos dhigto ka waran dad noloshaada ilaa inta aad ka helayso dakhliga fara badan oo kala duwan oo adig meel ka soo galay maxay tahay sababta aad lifestyle-kaaga sare u qaadato halkan tala ayaan ku siinaya dakhliga ha ka horeysin lifestyle-kaaga dakhli fara badan markaad samayso lifestyle-kaaga ka sarisi waxaa jira hal sharci oo aad i cajab geliyo oo aan ka bartay icon wuxuu yidhi dakhliga aan haystaa intuu doono ha leekaado haddaan rabo shaygaas waa inuu qiimo ahaan ku fadhiyaa 10% lacagta anigu aan haysto tusaale ahaan haddii aan haysto $100 halka shay aan iibsan karaya waa shay qiimihiisu taagan $10 wax ka badan ma iibsan karayo 10% lacagta aan haysto net worth-iga lacagta qiimaha aan haysto intay ku fadhido 10% shay ah kaliya ma iibsan karayo wax ka sare ma iibsan karayo ka hor inta sharciga ku dhaqato noloshaadana aad hoos dhigto noloshaada aad ururiso waxay ka caawin kartaa inaad nolosha aad xor ka ahaato saadan jeel maanta aad gacanteeda ugu jirin oo u shaqayn waxaad awoodi kartaa xataa fasax inaad qaadato markaad doonto shaqadaada fasax ka qaadato maadaama ogtahay noloshaada inay aad u hooseyso oysan ahayn nolol qaali ood ku qasbantay inaad lacag fara badan ay ku soo gasho marka noloshaada ururi ilaa inta cash flow fara badan oo kala duwan ay ku soo galiyaan